maxkamadda sare ee bari ee dalkaasi Denmark ayaa ka bariyeeshay wiil dhalinyaro ah oo 20 jir ah dambi ah in uu dil u geystay laba dhalinyaro ah kuwaasoo da'doodu ahayd 17 jir iyo 18 jir. wiilkan dhalinyarada ah ee laga bariyeelay dilkaasi ka dhacay bariga magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark ayay maxkamaddu sheegtay in wiilkani uu ahaa mid difaacanaya naftiisa kadib markii uu weerar kaga yimid wiilashan labada ah ee uu dilay iyo afar kale oo la socotay kuwaasoo isaga naftiisa halis gelinayay. wiilkan dhalinyarada ah ayaa qirtay in uu labada wiil ee 17 jirka iyo 18 jirka midna tooreyda ka geliyay wadnaha halka kan kalena uu cunaha ka geliyay, labadaas dhaawacna ay u geeriyoodeen. ha yeeshee waxa uu iska diiday in uu wax dambi ku leeyahay maadaama uu difaacanayay naftiisa. dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday bariga magaalada Copenhagen 6dii bishii Maarso ee 2023 kolkaas oo uu wiilkani jiray 17 sano. ha yeeshee hadda waxa uu jiraa 20 sano. labada wiil oo ku dhimatay dhacdadaas ayaa kala ahaa 17 jir iyo 18 jir, waxaana lagu soo waramayaa in ay maxkamadda hadda labada dambi iyo labada tuhun ee dilka ah ee wiilkan dhalinyarada loo haystay ee ka bariyeeshay. waxa uu sheegay wiilkan dhalinyarada ah in ay wiilashan ahaayeen 6 qofood oo ay soo weerareen naftiisana ay halis geliyeen, wuxuuna sheegay laba ka mida in uu dilay oo uu nafta dhaafiyay isaga oo watay toorey uu ku difaacanayay naftiisa maadaama uu baqdin qabay oo ahayd in ay wiilashani soo weeraraan oo ay mindiyayaan ama tooreeyaan oo ay dilaan. wuxuuna sheegay afarta kale in ay goobta ka badbaadeen. booliiska oo soo qabtay afarta kale ayaa iyaguna waxaa lagu soo eedeeyay rabshado iyo dhibaatayn, taasoo hadda aysan maxkamadda weli xukun kama dambaysa ay ku ridin. ha yeeshee waxaa la dhigay xabsiga afarta wiil ee kale ee 6da ahaa ee wiilkan dhalinyarada ah soo weerartay. 20 jirkan ayay maxkamadda bari ee dalka Denmark oo u dhiganta maxkamadda racfaanka waddanka Norway waxa ay ka bariyeeshay falalkii dilka ahaa ee labada dhalinyaro ee loo haystay, waxayna u qirtay in wiilkan dhalinyarada ah uu difaacanayay naftiisa isaga oo ay soo weerareen 6 dhalinyaro ah kuwa oo doonayay in ay isagu ka takhalusaan. xukunka afarta wiil kale ee dhalinyarada ah ee nool ayaysan maxkamadda weli go'aan ka gaarin, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda maanta oo Jimco ah ay maxkamaddu go'aan kama dambaysa ka soo saarto afarta wiil oo iyaguna lagu tuhumayo rabshado, dhibaatayn iyo weerar ay kula kaceen wiilkan 20 jirka ah ee laga bariyeelay dilka labada qofood ee uu tooreyda ugu geystay. halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.